telefoonkaas aan ku helay waan ku helay si ay idinla hadlana intaana ilaahay saacadeeda dhameen ayaan jeclaystay inaan runni sheego war dalkani uu burburay diin ma haysto caafimaad ma haysto tacliin ma haysto dadku waxay ku nool yihiin darxumo daranyo cadaalad darro dulmi wax walba lagu nool yahay anu waa runta waan sheegay anuu xabsiga ku jira weliba runta niisi sheegay ilaahay baa wax dilay kaaleyoona dila ilaahay baa wax dilay haddaad wax dishiin kaaleyo halkaa igu dhex imaado ani dila ereyadani waxay qayb ka ahaayeen muuqaal oo xabsiga ka soo dhex duubay duuliye Fuaad Yuusuf Cali oo hore uga tirsanaa ciidamada cirka waddanka Djibouti kaasoo muddo 2 bilood ku xidhan xabsi ku yaala gudaha magaalada Djibouti waxaana uu ka deeriyay xaaladiisa caafimaad iyo weliba cadaalad darro uu tirsanayo kadib markii muuqaalkaasi uu soo baxay waxa dhacay banaanbaxyo lagu dalbanayo in cadaalad uu helo duuliye Fuaad Yuusuf Cali kuwaasoo ka dhacay magaalada Djibouti shalay iyo maanta dadka mudaharaadayay oo ay maanta u qorshaysneed inay isugu yimaadaan garoonka kubadda cagta ee Guuleed ayaanay u suurtagelin kadib markii xukuumaddu halkaasi ay dhoobtay ciidan taas beddelkeedana dadweynaha banaanbaxayay ayaa waxay go'aansadeen in xaafadaha magaalada ay isugu soo baxaan si gooni Samira Jaamac Abdi waa xaaska duuliyaha xidhan ee cadaalad darrada tirsanaya iyadoo ku sugan gudaha magaalada Djibouti ayay ugu warantay khadka telefoonka ugu horreeyna waxaan weydiiyay bal xaaladda uu ku sugan yahay saygeedu ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto aad baan horta u salaamaya aad baan u hambalyeynaya sida quruxda badan ee walaalkooda ku wada kaceen taa ka bacdi walaalo haddaan arrinka Fuaad aan kaaga waramo Fuaad wuxuu ahaa nin ciidanka Djibouti ka tirsan buu ahaa nin walaal wuxuu ahaa baylod buu ahaa Fuaad nin tacliintiisa u buuxdo ahaa walaalo wuxuu ku maxil buu ka hayay ciidamada Djibouti maxil buu ka hayay yani maxil buu ka hayay xil buu ku hayo nin labaalaabuu ahaa sarkaal sare u ahaa sarkaaladu ka tirsanaa sarkaalada ka tirsankeegana waxa uu dheeraada nin baylad u ahaa bayladkana noloshu ku nool yahay caalamka waa laga yaqaanaa marka dhibtan uu tirsaday ee keentay inuu waddanka ka baxo markii hore maxay ahayd dhibtuu tirsaday walaala inuu dalka kaga tegana uu maanta nolosha ku sugnaadana keentay waxa weeyaan ninka haysta xiradooda oo si cadaalad darro ula dhaqmayay oo bayloodnimadii ka joojiyay oo mushaharkiisu qaadanay dhididkiisii ka xidhay lacagtii Samira dadku waxay isweydiin karaan 2 bilood ka hor waxa la daawaday muuqaal Fuaad oo diyaarad gudaheed muuqaal ka soo duubay oo ku dhawaaqaya in uu goostay oo waddanka uu ka baxayo maalinta aniga ayaa walaal dadka ka shaka bixinaya kana waramaya maalin Jimcaha bay ahayd bisha 27 bay ahayd 9kii subaxnimo shaqo tagayay habeenkaas oo dhan gaar buu haynayay dhulku uu kala xidhnaa oo magaalada xanuunkan ina soo galay baa kala xidhay ahayd gaadhiyaal may shaqaynayn basas may shaqaynayn Fuaad horta shakhsiyan gaadhi ma wato basku iska raaca asagoo nin baylooda waxaan ku ruuxu la hadlay xeradii markuu la hadlay ku yiri maanta shaqada maadaama uu leeyahay gaadhi aan soo raaca ma jirtee gaadhi halay soo diro sheefkii xeradu wuxuu ugu soo jawaabay gaadhi lama soo dirayo soo luge maalinta diyaaradda arrinkeegan dadka uga sheekaynaya Fuaad wuxuu ka lugayay Beekaduus meel la yiraahdo aan deganahay ilaayo wuxuu u lugayay airportkii hadduu ilaa halka u lugayay waxa loo kala socdaa 2 saacadood marka bas la fuushan yahay marka la lugaynayana waa qiyaasteeda waa la garan karayaa xeradii walaale Fuaad wuxuu galay isagoo xoog u cadhoonaya oo xoog u digidsan markuu xeradii galay wuxuu ku iri ninkii sheefkii maxaa gaadhiga aad igu soo diri weyday uu karayay Fuaad inuu maalintii iska seexdo aqalkiisa laakiin hadduu seexdo uu xukumayaa xarig buu ku xukumayaa taabu ka cararayay maadaama aabbato dabciyaa la yahay waxaan ku uu socday xeradii markuu galay buu iri maxaa galay igu soo diri waayay gaadhi cadhadii Fuaad maalintii diyaaradda dhex koray diyaaradda hadduu Fuaad koray videoga uu iskaga duubay ee diyaarad uu Fuaad la baxsaday iyo diyaarad uu kaxaysay midna toona ma jirto ee waa wax lagu ceebaynay lagu cambaaraynayna naftiisa quru la baxsaday Fuaad marka
ma wuxuu tirsanayay oo keliya in gaari loo soo dira waayey mise dhibaatooyin kale ayaa jiray Samiiraay? dhibaatooyin kale ayaa jira walaal, gaari oo qura sheekadu may ahayn. dhibaatooyinka jirta waxa kamid ah baan ku uri bayloodnimadii buu sanad ka hor laga joojiyay, mushaharkiisina waa laga xidhay. dhibaatooyin fara badan baa meesha jirtay. haye marka cadaalad darraana waa loola dhaqmayay mar kasta. marka diyaaradan muu kaxaysan ee muuqaalkunbuu ku duubay miyaa? haa, muu kaxaysan diyaaradda, muuqaalkuu ku dhex duubay bes, muu kaxaysan diyaarad. xaguu baxsaday markaa kadib? adigu markii uu ku arkay ninkii xeradooda haysewihi, markuu ku dhex arkay Fuaad diyaaradii korsan, ayuu u dalbaday ciidankii dalka, sirdoonka, booliska, jaandaaranka, armeega, cid kasta u dalbaday. markuu dadkii u dalbaday ayuu Fuaadna intuu qaado diyaaradii kasoo dhaadhacay, ayuu albaabkii xerada ee halka dambe ayaa ciidankii meesha ka shaqeynay ka fureen albaabkiina, wuuna ka baxsaday. sidii wuuna ku baxsaday Itoobiya ku galay. Itoobiya markuu tegay kadib yaa soo qabtay markaa, maxaa dib u soo celiyay? Itoobiya markuu Fuaad Addis Ababa u galay, Fuaad wuxuu samaystay warqad magangeliye ah oo dalka Itoobiya dhexdeeda uu ku noolaan karo ayuu samaystay. waana loo ogolaaday haddii loo ogolaadayna qolada sirdoonka ee Itoobiya iyo sirdoonkii Djibouti ayaa heshiiyey, soona dhiibay 3 habeenimana inta gabigiisaba la soo wada xidhay oo passport fooyo loo sameeyay ayaa airportka Addis Ababa laga soo kaxaystay diyaarada Djibouti leedahay oo lagu keenay Djibouti. hadda wax maxkamada ma la geeyay intii uu ku sugnaa xabsiga ku yaala wadanka Djibouti? inta uu maxay yahay xabsiga gabood ku sugan yahay, waxaan ku uriyaa habeen bay geeyeen, hal habeen bay habeenimo waliba geeyeen. cadaalad meesha ma jirto. qof habeen maxkamad la saara halkee lagu arkay? habeenkii markii maxkamadii la saarayna uu diiday inuu hadlo. wuxuu yidhi anu avokaa baan leeyahay, avokaagayga aniga hala keeno. sidii baana garyaqaan baad ujeedaa? ninkan dee kala qaada dee dacwada qofka dee u dacwiya. sax. maxaa tidaahdin inigu? waa kaa. markaas sidii buu ku diiday in dacwad laga qoro, sidii baa lagu celiyay halkaas. imika shalay toole maaha, doraad khamiistii, doraad toolaha khamiistii maaha, arbacadii afhayeenkiisii waxaa lasoo siiyey warqad maxkamadda in lagu horkeenaya. shalay toole ani afhayeenkiiba maxkamadii baan tagnay, maxkamadii Djibouti baan joognay. waxaan ku yidhi raggii justiiska iyo dacwadda qaadayay waxay idhaahdeen lama keenin shalay maxkamadii, sidii bay u keeni waayeen. avokaagii aniguna halkii baan kaga soo noqonay maxkamadda. dhibaatooyin kale oo laydinku hayaa ma jira marka laga tago in uu ninkaagii xidhan yahay oo xaaladiisuna ay xun tahay sida aad sheegtay? dhibaatooyin badan waana lagu hayaa, habeen iyo dharaan anaga sidaaba naloo dul joogaa, khaatiyaan baan joognaa. imika xalay toole inan yaroon dhalay oo aqalka hortiisa taagan ayay askartu intay u timday si xun oo cadaalad darraa u dishay. inantii yareed aqalka ii dhex jiiftaa imika. tu kalena shalay casarkii baa layga qaado oo layga xidhay. oo aad dhashay? oo aan dhalay. sabab maa loo xidhay? sabab maa loo xidhay, banaankay taagneed baa lagu xidho laga qaaday. ciyaalkii baa laleeyahay ha eegina dibadii, ha istaagina. Samiira, waxaa kale oo shalay ka dhacay magaalada banaanbaxyo lagu taageerayo oo lagu dalbanayo in ninkaaga la soo daayo. maantana qaar baa qorshaysan ayaa la sheegay salaada duhur kadib ama salaada duhur kadib. waa runta xagga ka waran? wallahi mudaharaadyadu ilaa shalay xoog ba u socdaan. shicibka reer Djibouti maasha Allah baan leeyahay, xoog ba u sare kacsan yihiin, cadaalad xaqayna doonayaan. maanta waad arkaysiin deeqo maanta iyadna dareyskii dhigtay waa daawateen baan u malaynayaa. waxaan ciidanka dhammaana ka sugayaa sidaa iyo si lamida, waayo ciidanku maanta cadaalad kuma noola horta. cadaalad darra Djibouti dhex taala. deeqi waa tuma dadka aan garanayn. deeqi waxa weeyaan walaalinadan yaroo fanaanada oo jantaalo markii la sameeyay ku soo baxday. deeqa geed baa la yidhaahdaa. maasha Allah saaka dareyskii way dhigtay. dhinaca dawladda, wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa waxa uu sheegay in dadka ku baaqaya rabshadaha iyo kacdoonku ay ku jiraan dembi,
isla markaasna ay suurtagal tahay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado. waxaana uu intaasi ku daray in xukuumaddu mas'uul ka tahay kala dambaynta, sidaas daraaddeed qof kasta lagula xisaabtamayo wixii uu geysto. isla qoraal kale oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ku sheegay in maxbuuska xidhan uu caban karo, hawshaasna uu gacanta ku hayo qareenkiisa oo kala shaqaynaya waaxda garsoorka oo qiimaynaysa xaaladdan. Jabuuti waa waddan yar oo ku yaala goob istaraatiiji ah, isla markaasna muddo dheer haystay nabad. inkastoo mucaaradku ay ka cawdaan in lagu hayo cadaadis iyo in aanay haysan xorriyad dhinaca siyaasadda. siyaasad ahaan Jabuuti waxaa ka dhacda doorashooyin ay dadweynuhu u dareeraan, laakiin mucaaradku waxay sheegeen in doorashooyinkaasi aanay u dhicin hab xor iyo xalaal ah. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka talinayay waddanka Jabuuti ilaa sanadkii 1999. welina isaga ayaa madaxweyne ka. wixii wararaya ka soo kordhay xaaladda Jabuuti waxaad kala socon doontaan telefishinka Home Cable. xasan galayd, wararka Home Cable, Hargeysa.